واجد aan ku bilowna wafdi wasiira oo ka socda dawlad deegaanka Soomaalida ee wadankaasi Itoobiya ayaa booqasho ku yimiday magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Wafdigaasi oo hogaaminayay wasiirka ganacsiga iyo gaadiidka mudane Khadar Cabdi Ismaaciil waxaa si weyn ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee ku yaala magaalada Minneapolis dadweyne aad u tiro badan oo ka tirsan hajaaliyada dawlad deegaanka Soomaalida ee ku dhaqan gobolka Minnesota. wafdigani oo hogaaminay wasiirka ganacsiga iyo gaadiidka mudane Khadar Cabdi Ismaaciil ayaa waxa booqashadani ku wehelinayay laba wasiir oo kale oo kamid ahaa wasiirka madaxtooyada Cabdi Mahad iyo wasiirada xanaanada xoolaha Maajida Maxamed Maxamuud. dadweynihii iyagu halkaasi ku soo dhaweeyay ayaa oo la hadlay telefishinka STN ayaa shucuurtooda ku buujiyay sida ay ugu faraxsan yihiin booqashada wafdigani ay ku yimaadaan gobolka Minnesota. waxaana hadaladoodii kamid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Faarax Xuseen Fure waxaan joogaa airportka ku yaala Minneapolis aniga oo ku hadlaya magacayga magaca jaaliyada waxaan si sharaf leh u soo dhaweynaynaa wafdi ballaaran oo hogaaminayo legend Khadar Cabdi Ismaaciil wasiirkeena ahna madaxa sare ee xarunta xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaaliya Itoobiya waxa dhinacyada taagan dhamaan jaaliyadii oo cid ka maqnayn maamulkeedii sare marka maalin ka duwan maalmaha weeyaan oo aad aan soo dhaweynayno. waxaan maanta halkan isugu nimid soo dhaweynta wafdiga dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee uu hogaaminayo Khadar Cabdi Ismaaciil wasiirka ganacsiga iyo gaadiidka marka halkan waxa ku dhan jaaliyadii wafdigan gacmo furan ku soo dhaweynayna boqolkiiba boqol aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweyntooda waana ka qayb qaadanaynaa shir weyn oo qiimo badanna waan u diyaarinaynaa marka jaaliyadii midaysan way ku soo dhawaanayaan aad iyo aad baad mahadsantiin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta kulay waa maalin aad iyo aad noogu qaaliya waxa halkan isugu yimid dhammaan jaaliyada dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya anagoo har iyo habeenba u taagan sidii aan u soo dhaweyn lahayn mas'uuliyiinteeda sharafta leh ee nooga imanaya caasimadii dalka dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga oo ugu horeeyo Khadar iyo Maajida iyo dhammaan mas'uuliyiinta kale la socda waxaan u leenahay ku soo dhawaada halkan waxa idinku sugaya dadkiini oo idin jecel oo qalbi furan iyo gacmo furanba idinku soo dhaweynaya soo dhawaada baan idin leenahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلي ولاش النظيرة هذا الكلام waxaan suugaynaa wax weeyaan dawladeena qaaliga ahayd uu hogaaminayo Khadar Cabdi Ismaaciil Maajida iyo qaar kale oo badan insha Allah marka waxa leenahay soo dhawaada. ugu dambeyntiina waxa halkaasi kelmado mahadnaq ah ka jeediyay wafdigii cuslaa ee wasiirada ka kooban isla markaana ka socday dawlad deegaanka Soomaalida ee wadankaasi Itoobiya waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay wasiirka ganacsiga iyo gaadiidka Khadar Cabdi Ismaaciil oo u mahadnaqay dadweynihii halkaasi iyagu ku soo dhaweeyay. marka hore waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa jaaliyada North America nagu qaabishay saacadan aan taaganahay airportka Minneapolis oo ka soo degnay koleyto waxaan leeyahay dhammaan waan salaamayaa sida quruxda badan ee noo soo dhaweyseen oo mid aan idinka mahad celinayno insha Allah kulamadeeni ka yeelan doona koley cid kale ma aanu soconay idinkum baan ni soconay waxaan leeyahay insha Allah dib baynu iska wareysan doonaa aad iyo aad baad u mahadsantiin. wafdigani wasiirada ah ee booqashada ku jooga gobolka Minnesota ayaa waxa la filayaa in ay maalmaha soo socda kulamo ballaaran ay la yeeshaan jaaliyada dawlad deegaanka Soomaalida wadankaasi Itoobiya iyagu ku dhaqan gobolka Minnesota.